hirshabeelle haddii aan ka hadlo matalaada dil yiraahdo horta qof walba uma dhamo maamulka hirshabeelle waxa arkaysaa dad oo ama maamulada kaleba waxa arkaysaa qabiil ama jufo haysata jufo kale in ka badan oo haddana dhehayso waana la riixay waana la sadbursaday dhahay waxa arkaysaa nin hal maxuu ahaay xubin ka helay maamulka oo dhahay waa iimaansanahay shalaba ma haysanin xabadeyda maamulka hirshabeelle eeylo hal xibinay ku lahayd xubinteediina way heshay runtii waxaan lagu go'aaminina meel laga keenayo malahan maanta waa dhihi kara aniga maamulka hirshabeelle xuquuqaad badan nooga maqan oo waa sax xuquuqaad badan nooga maqan waxaan u baahneen waxyaabo badan oo kamid ah in beel walba ay hesho laakiin waxaan celinayo oo nacaburinayo mar walba waxay tahay lan yamna fam ibn aadam illa turab qof walba ma qancin kartid ma hirshabeelle intaas oo qabiila degto hadii xubnihii la kala qaybiyay oo xubinta beesha eelo ee hal ay noqotay ma ku doodi karno xubintan maxay hal u noqotay mesela 99 la qaybiyay eelaha la ku soo aaday hal codsi waa la dhihi karaa oo baarlamaanka hadii uu yiraahdo beelaha degan hirshabeelle hal la soo tiro koobo oo xildhibaanada intaas laga sii badiil yiraahdo aniga ebil hore waxaan aaminsanaa in hirshabeelle ay nagu takoortay nagu boosreexday sidkeenina ay bursatay ayaan aaminsanaa oo xitaa madaxweynaha aan ku dhaganaa cali guudlaabe aan ku dhaganaa xildhibaanka aan ku dhaganaa xildhibaan wehel aan ku dhaganaa xilli hore laakiin waxaan ogaaday wixii aad ku qoray hadii dulmi lagu qoran inaan lagaaga badin karin hadii hafaa'ido beesha lagu qoran inaan lagaaga badin karin waayo aad beel waxa jirta aan wax bahaysanin aad ka hooseyso marka anaga halkeenan inkastoon ku iimaan qabin waxaan ugu iimaan qabnaa in maamulkan la dhiso waxaan aaminay digsigii oo markaasi si dawladnimada inay ku socoto digsigii hadda maxuu ahay gacno badiyaan oo fud xaraareeya xildhibaanada hadii inta 800 xildhibaan kun xildhibaan hadii qabiil walba la qanciyo oo konton xildhibaan soo qoran liiraad hulku wuxuu noqonayaa kun xildhibaan 2000 xildhibaan hadda federal lamaan waa maamul goboleed marka aniga waxaan qabaa hadii ay tahay eeylo kale waa maxuu ahay jufooyin badan ay leedahay in hal xildhibaan la siiyo shiid loo kale jufooyin badan ay leedahay hal xildhibaan la siiyo waxa dhan qabiil walba hal xildhibaan oo matala oo xildhibaanadaasi kalena u qalma in laga soo koobo hadii mesela hirshabeelle ay 30 qabiil ay degto waxaan aaminsanahay in 30 xildhibaan la sameeyo kadib waxa iman kar marka xuquuqaad badan oo beesha ay yeelan karto waxa iman karto agaasimiyaal wasaaradda la dhisaya agaasimiyaal ay iman karo xoghayaal ay iman karo waxyaabo badan ay iman karo ciidan ay iman karo waxbarasho ay iman karto fursooyin fara badan ay markaas dawladda heli kartaa laakiin markii la badiyay xildhibaanadii 100 iyo 200 laga dhigay oo federaalna aadan ahayn maamulku waxa ku soo dhacaya dhaqaalaha oo iska yar yahay hadda waxay noqonaysaa wixii inay xildhibaanada loo qaybiyo marka shaqooyinkii kale la heli jirana aan la helin daris waa aan u aamusay marka si kala ma dhihi karnaa suuqyare xilliga hore wuxuu ku kacsanaa xildhibaankii hore matalayay hadda nin saaxiibkiisa ah ayaa booskii u geystay ama xigta aan hays xigaano ama aragti aan hays xigaano ama dhalinyarnimo ahaantaya ma dhihi karo ma dhihi karo shakhsi ahaan may waa dadku way dhihi karaan laakiin shakhsi ahaan ani ma dhihi kari shalay wehel waa isdagaalsaneen oo abaabulku waxa aan bilaabay xilliga xildhibaan wehel oo joogay waxaan ahaa dadkii xildhibaan wehel dhalinyaro u aruuriyay u tagay ee yiri booska waa laga bedela odayaalan isu keenay booska in laga bedelo ninkan waa markii dambe caqabado fara badan oo ii sheegay waa ka degay waa ka leexday sidoo kale ma la dhihi karo dadku way dhihi karaan laakiin ani ma dhihi karo suuqyada Umar Soomane ama xildhibaanka hadda meesha jooga saaxiib la Umar Soomane waa xildhibaan markii kor darajada kor la fiiriyo title-ka kor la fiiriyo xildhibaan Umar Maxamed Soomane waa xildhibaankayga eeylo ugu matala hirshabeelle ugu matala waa mas'uulkayga maanta maxuu ahay ii fadhiyo hirshabeelle kursigaasna ii haya inta soo sanahay ii joogo inta soo sanahay ama hadda ha ka dago waa hadda mas'uul imatala maantadan la jooga marka taasi title-kaas aan ku qadarina laakiin siyaasad ahaan ani siyaasadan leeyahay asna siyaasadu leeyahay
ما ku raacsani siyaasadda had Hirshabelle uu ku fadhiyo ama uu ku joogo ama wasiir dawladda aado ama wasiir aado kuma raacsani nidaamka kale oo Hirshabelle ahaan iyo qaabka Hirshabelle ay u socoto waa mid aan la dhacsanayo mar walba aan baraha bulshada aan soo dhigo oo aan jecelahay in nidaamka dawladdeeda ama maamulkayga inuu ka hormaro nidaamyada kale ee dawladaha kale horumarada kale maamulada ay sameynayaan inay maamulkayga iiga horeeyo mar walba Hirshabelle uu horeeyo Hirshabelle koob qaada la yiraahdo aad baan u jecel laakiin xildhibaankayga qaabka uu meesha igu matala ma jeclaysan waayahay Cabdirashiid Sugow Kuulow ma leeyahay damac siyaasadeed ha baan leeyahay oo ka weyn weli siyaasaddan leeyahay hada kan waa Hirshabelle ka weyn oo federaal aan leeyahay ka weyn oo Soomaaliya oo dhan aan leeyahay inaan maxaa aan siyaasad hamiga ugu jiro intaas weyn ilaa anigu waxaan ahay muwaadin Soomaaliya xuquuqan u leeyahay inaan maxaa siyaasadeedii aan ku beeriyo Hirshabelle waa musharaxan baan noqday Hirshabelle doorashadii hadda socotay Umar Soomaali ninka kursiga ku tartamayay uu ka boobay la dhihi karo aniga oo ah oo ka hormaray oo ka orday liiraa aniga wax sababta igu dhaliyay inaan xilliga doorashada aan imaado waxyaabo badan aan sameeyo madax badan la kulmay Hirshabelle dadka ugu sareeya qaar kamid ah la kulmaan jiro aan codsi u gudbiyay odayaal aan la hadlay jiro aan codsi u gudbiyay hase ahaatee قدر الله ما شاء وما شاء فعل. واجب وأنت هذا اللي هنرتاد. ما لديه كرا يعني عبدالرشيد ذكي سوق قنعوي وقنعوي لما شاء الله يلا وحقين يسي. نظام سياسي ماشي جرا. يعني هذا أنا كهذا أنا ربينه ده هوستي ساعة. هذا كم هذا هاي. لكن وحن ليه كرا إله بأقرأ وهو نبوه. أسيقها بوب أم الله بوب. ها. hadda ugu dambeyn maxaad u soo jeedinaysaa bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan meeshaada Marwa Fertility Center xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka alla ayaa awlaadda bixiye hamiirada gogasha dhiciska dilinka burabiyoodka iyo xanuunada kale ee taranka fadlan nagu soo booqo xarunteena Muqdisho Taleex ama nagala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda mahadsanid